اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا فإذا وعى القرآن حين لانا fadhino waa dufcaddii afraad ee degmada boon kana qala jabisa madrasatu abubakar sadiiq dufcaddaasi runtii innagoo maanta ku jirna munaasabadoodii ay runtii taariikhduna tahay 2016 oon maanta halkan u fadhino taariikhdaasoo ku beegan hijriga 1430 ilaa 1438 oo maanta ah tirada ardayda maanta halkan fadhida ee qalin jabinaysa runtii waxay ka kooban yihiin 21 arday 21 arday waa hal wiil iyo 20 hablaa marka la isu geeyo afarta dufcadood waxay ka kooban yihiin 39 arday tirada wiilashu waxa weeye 54 habluhuna waa 39 maasha Allah baan leenahay waa arrin aad u qiimo badan waana guul aad u weyn ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisana sharaf laga heli karo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka quraanka xifdiya ee ku dhaqma maalinta qiyaamaha labadiisa waalid waxa loo geliyaa taaj baa loo xidhayaa taajkaasoo nuur ah nuurka uu ku tilmaamay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay taajka nuurkiisa sida iftiinka qorraxda oo kale uu yahay markaasay odhanayaan taajkan maxaan ku helay sababtaan ku helay maxay tahay markaasaa la odhanayaa sababtaad ku hesheen waxa weeye ilmihiinni aad ku dadaasheen ee waxa weeye qur'aanka xifdiyey sababtiisa iyaad maanta ku hesheen runtii waxa weeye faa'iidadaa weyn iyo waxa weeye abaalgudkaa weyn baa laga helayaa baan leenahay waalidiinta insha allahu tacaala inay iyaguna ku dadaalaan mujtamaca ama bulshada ka soo qayb gashay iyagana waxaan kula dardaarmaya insha allahu tacaala in la ayido qofka khayrka wada iyo waxa weeye wanaagga wada in la ayido oo la taageero waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta gabdhaha qalin jabinaya oo quraanka qalin jabiyay inay yihiin dhammaantood gabdho quraankii soo qalin jabiyay waxa aad iyo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqooyaan waxaan marka ilaahay uga baryaynaa macallimiintii quraanka soo bartay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo macallimiin maalinta qiyaamaha oo quraanku u shafeecan qaado maadaama ay gabdhihii noo soo saareen waxaa kaloo maanta jawaab aad u kuluhansiinay kuwa ku doondooda ee mar walba yidhaahda gabdhaha tacliintooda hoos baa loo dhigay waxaa jira niman ka shaqeeya un howlaha noocaa yidhaahda dumarka tacliintoodii iyo dumarka xuquuqdoodii iyo dumarka tasbiixdooda ka dhigteenba oo ay nagu wareeriyeen markaa kuwii noocaa u hadli jireen maanta alxamdulilah jawaab aad u fiican bay siiyeen macallimiintu dhammaan kuwa qalin jabiye oo 20 gabdhooda ayaa meesha soo fadhiya waana 20 gabdhood oo wada gabdhaha dhammaantood wiil kaliya ku jira la yidhi alxamdulilah marka halkaa maanta waxay nooga cad in tacliinta gabdhaha inagu aad u xoojinay oon kaga badinay kuwii meelaha ka soo buuqbuuqi jiray waxaanan ku nidhi kuwaas hay-adaha isku sheegaya ama gaalada ahaa waan baraynaa gabdhaheenna iyo wiilasheennaba markaa jazaakum allahu khayran gabdhaha qalin jabiyey iyagana gaar baan ugu ducaynaynaa waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo subxaanahu wa tacaala waxaad noqon doontaan berita ka maalin hooyooyin qiimo badan oo soo saaraya carruur wanaagsan ayaad noqon doontaan waxaa la yidhi hooyadu al-ummu madrasatun in acdataha acdata shacban dayiba alacraaqi hooyadu waxa weeyaan madrasad haddii aad diyaariso oo si fiican u soo barbaariso waxaad diyaarisay shacab dhan oo dhammaystiran oo wanaagsan buu leeyahay ninkaa gabaagii nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu aad u ammaanay qofka 2 gabdhood dhalay ee soo barbaariyey ee akhlaaqada baray والنبي يقول صلى الله عليه وسلم كلنا له سترا ونورا ونجاة يومتان أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحيو نقوني سترا من النار نار تأسكرات وقال ابن يقول ساس وحديث وآمنيسو هذا بولا ريال قبلها سالو سو برباري القرآن كالبري والدين تو يحمد الدار منا
كسي وهي قبلها جزاكم الله خيرا هل نقضان قبل أهل الخير أو قرآن كي دقن كيسي تفسير كيسي وإن دفع سي بران كسي دلالا ويريد كلام شفدنا هنا هي قبل كسو هو يريد هل كان يفردون أما هو يريد كرجسنا قبل هنا قرآن قال جبيه كسي دكتور أنت بدنا هذا الشيء اللي مدرسة وما يمكن رئيسان وحلقة أبها ولد بدنا يدرسوا بدنا يتاجي هذا قبل هذا القرآن قال جبيسي وأنا ترى كاله عشر كيمر أو هذين كثر تطالع الدنيا جزاك الله خيرا نقول قف قبل هنا قرآن كحفظه يا دمي سيرتي يدرك تكين صفات حق القلدان وأرم حاني الرحيم تايسان دمر بام واحد كنت كلام أرم حاني الرحيم كنت كلام يدو إنت اللي أتقال جبيسي أي يدنا قرآن كقرآن ليسان يدو إنت اللي قرآن كحفظ سنتاي أي أتحيا القلدان كنت كنيسان أرن تاسوارن آدي هذا خللا ويا كنت داشان قبل هنا قيامة بدل ما أنت قرآن كذي قال جبي يا كنت لا كاله هو يمر عشكي كالان سبعنا وسائل الداشة حديثك حكى له شيئا قف كسر قبل وضع أما أفر قبل وضع أما لو قبل سلا تربية وناجية إلهي يقول جاريان أما حيسنا يوم إن إلهي أسرارنا تقولي سبحانه وتعالى هذا كيانا سوكو ويحون الله المادي يسجل في سين البرتاج يدور في عينه لكن ديني كسامان ثاني فوجيني قبل أن يروق الجميع ونسلي فوجينا ولا ريال حفلة دي سنة يقول سقاي قالوا ما أنت سنة وكلا حفلة اللي جاي القرآن كلا اللي جايو عروض عن كتير سينو إن القرآن كجعلان إلا قبل العبير الخير الكافرديان إلهي وينان يان وين صوت تربية تربية كذا ما دام النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته دمانتنا ريال باتين دمانتنا قيامة ولنويدين واحد الرجال كايدن عروض عيرال كاين قرر فرد دمانته وقالت كسر عليه قيامة ولا حسابين دوناي بل واحد في جواب لهاي إما كسيد يارسون سيا القرآن كان وجبيان كل فكر مال ما كمله بالكور إنه يلشن عروض عشان تبى القرآن كودمين أعطاه كور من طبعا عروض طبعا تبى القرآن كودمين وحلاقات دونا يعني عروض هذا يكون شفاعة غير دونا ما يكون سود عين دونا هذا كل داشو وحنقص ختم هذا الكلام نبي عليه الصلاة والسلام بين آدم كعمل وقع إلى صدق قسمه يعني صدق قف عمل كوجو ما وقع يا ممكن الإنسان حتى عمل كوجو وسي سؤالنا يا ومرنا بعد ما كلا كوينيو قف كوجو حويان قف صدقة جارية سمين صدقة جارية حويان مسكين أما لامي أما طريق مسمين قف كاس عمل في سؤالنا إلى يوم الدين لا قف كلا بعدنا حويان قف ولد صالح حتى لي أو اللي بيسود عينيو حتى والدك هاي اللي في عنك تجي درجة جناه سيد الله عقل ما مركو يدير على كده درجة نيجي صاب بيرتينا وحلا يقول علمها هاي باكوس ودعينيا علمها هاي قرآن كبرت باكوس ودعينيا أو قرآن سو آخرية أو أحقف هذه مرة بكو حسوسنا كود دعيني درجة ولا سيد الله عيان قف صدحاتنا حوالي قف علم دفك بري سيد معلمين تمان قرآن كني سو يعني نسوا بري سيد قال جبسان مع الأحمد نور بكر ما يحيي إلا صدق السياشن قف أيام مجال القرآن يعني دفع هذه كلا دونا كسوق الانجبين ما شاء الله بوجو يوجد معلمين تمالين تبيعما والله سو حاضرين يا انت سوق القرآن كبري بالورنا يا ويبر على معلمين تجيل هذا قبل إخلاص النقطة أنت سو عارنا كبرارين انت سنقول لك سو ختم لها والذين وكتب على قبلنا قال القرآن الانجبين سينقول لنا قبل تفسير في سبرشة هل كان كسيا خيرك أو نقضاك أهل خيرا ولد ذا الإله أو بريء على بريء يلونا مركز سبب والدك وإلى سوج الأيوم هذا لما يودع ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة كويسة إلى عروت وكونا جنا إن شاء الله تعالى الله ينور نجيب. همبليو باندي له. وعويان. إلهي نقوليو. إلهي نقول كرب كرو. هو الشيطان كيبات إريديني. شيطان تنبكوا وكسر نقضو. أو دين تو القرآن كاي برتين كبابية إلهي نقمت كي كويسنا شيطان كو إريدين. شيطان كو أو كت جيبا إلا يوم الدين إلهي نقدر. علمي ومن دكتي وقارئ يسامع. وضدي جنات مرتين. إلهي هي نقع عماليو صدع علماء هرتي ويلهدين أو جنة هي نقع عماليو جنة الفردوس هنقع عماليو برشاد الرير بون وحن له هي وارمان تبقى وحلة يسوي ما دو حفل الله قبط حسب الله قبط هيئة الله قبط وحكى الله قبط ما أنت حفلة دام مالي وحكى قالي صنو حفلة الله قبل لها ما جيتو الحمد لله بالليلة الحمد لله رب العالمين والحريص وآخرية الدون بقى إلهي باي نوغن حريصني إلهي نوغن حريص مركا قرآن كا وعن لاهي
تاينا ويقطع تكلوا عن الله والرجل مدبر وقوستين شيخ وارآوي وعن الله غير بانو ردي ugu horeeyay maalintii ugu horeysay ugu badnaa ee habluhu ugu yaraayeen siday kolba u socotay raggii maanta inan baa la socdo 22ka hablii baa dunta ugu haray quraanka raggii ma ka sii baxaya waariyayna ka sii bixin halkaa maanta waxbaa ku jira anu calaamad su'aal ayaa reer boonu halkaa ka muuqata oo ku jirta raggii halkay mareen inamadii halkay mareen ma kuwa qayiraa ma kuwa taariibayba waa halkay mareen su'aal baa halkaa meesha talee boorays weydiiya wax lagu tartamo oo lagu ficiltamo oo hawl badan laga galo oo laysku tirtirsiiyo oo adduunyada korkeeda iyo aakhirada ka sareeya quraanka kariimka ma jiro aakhiriya adduunya waxna anfacaya waa kalaamka ilaahay waa kalaam rasuul intaan bay anfacaysa war bal ragawna dib iskugu noqon dhalinyaradii dib iskugu noqon halkay mareen halka calaamad su'aalan ku sheegay taayna way iga taa hablaana waxaan leeyahay nin quraan yaqaan ma ahine awowyaal adeerayaal oo awowyaal nin sidina quraan xafida ma ahine nin kala guursanina haba Allah halidaba nin sidina quraan ka xafdiyay oo Allah ku toosan ma nin kala guursanina mid kalena waan ku daraya hablaha waa la iibin jiray hablaha waa la iibsan jiray xoolaha la iibsan jiray maxaad haysaa maxaad igaga guursanaysaa maxaad iyaa la odhanayay aabbayaashina labaatankii nubanna quraan xafida guursada hadduu waalidku ini diidana annakiyo culimmadaa nii meherinayay waan ballan qaadayaa waan ku dagaalamayna waa guur xalaala iyaad guursanaysiin cid inaga hor joogsan kartaana ma jirta waa ni garab taaganna taayna waa iga taa hadalkayga waxaan ku soo koobayaa waxa weeyaan waa ducada alxamdulilaah ilaahu kugu mahad waxay odayadii hore waxba quraan garanayna odhanayeen ilaahu islaamnimada nagu dib oo nagu noolee ilaahu islaamnimada nagu dib ilaahu qowlka ilaahu shahaadada ilaahu qowlkayga shahaada u dambaysi laa ilaaha ila allah muxammadan rasuulullah mukhlisan khaalisan bay odhan jireen hadda wax quraan lama bari odayada ilaahu qowlkayga intaa u dambaysi ceeshkayagana xalaal quudkayagana xalaal ilaahu ceeshkaygana xalaal culimadan weydiiyo duca ka wanaagsanba ma jira yidhaahe waa sax markaa waxaan leeyahay ilaahay roob khayr waad ilaahay noo aqbalo hablaha waxaan kaloon kula dardaarmayaa sheekhaay wuxuu ka tegey raad dheer oo fiican dhammaantii waxaan kula dardaarmayaa rag iyo dumarba waa raadkii isagu imika waa ka waxbarasho kale u tegey ee gobolka jooga raadkaa uu ka tegey maasha allah rag kalaa sii wada waan garab taagannahay taana waan ballan qaadaynaa sheekhow intaad soo saartay waan garab taagannahay iyakuna waa inay halkii ka sii wadaan habluhuna waa inay macallimiinta ka qayb galaan weli hablo macallimiinoo qur-aanka barayahay la iguma sheegin haddaanan ka warlaayin waxaan ku soo gabagabaynaya ilaahu roob khayr qabay nasiib ilaahu ina guulee ilaahu aakhiradiyo adduunyadaba ina guulee ilaahu ina guulee ilaahu ubadkayagana ilaahu kuwa wanaagsan oo diinta ku anoonay nooga dhig ilaahu roob degdega nasiib ilaahu fidmadaynaga nabadgeli col iyo abaar iyo cudurba ilaahu inaga nabadgeli ilaahu tawfiiqiyo kala wanaagsanna ilaahu nasiiya ismaqal ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ومن يسرف في القتل إنه كان منصورا إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا مهله إن قصوا كل مية مكان كان آتك وقيمها له أودي حيالة أين لنا هنا كمين إيمانين إلهي سبحانه وتعالى أي أود داسي حيالة بيسكله آدي بدو ما تسنتهن وحان آدي أدغم هاد نقيا أرضيدا برنامج كآتك قيمها له أصاب مركزي دياريصي إيو معلمين تصدق في عن أولى السوداء شيء يقولون قمقابة مركزي حلنت وين كهيي إيا علماء الدين تا مقالة بون عاقل الذي هل كان كهل لي آت كمركزي ودي رجلنا صدق في عن الدعاء أرضيدا قلنا شبين إيسا مركزي قبلها آت كأقرص بدنا ما شاء الله والدين تا هويين كآت كأولى السوداء علي مر لبعض وحنقول السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت كذب ولا علماء آد بيوها لين مكان معايا هذا المركز هذا البناء هذا مبوحشة حاجة أنا جوا مركزي عن حاجة يرون هذا يدون كل دري لها يجوا مركزي لصوش يجوا وحبهارين وحن إلهي سبحانه وتعالى نفط إذا فينا ومركزي كبارين لها إلهي عبسديسة كتاب القرآن كيد مركزي صاحب تدين كياد كذا ديارسنا إن مركزي هالك لقى وضع أو مركزي لبرتو إن حديث إياه فقه إياه عقيدة إياه تفسير كبا إن هالك لقى وضع أو مركزي تاس أيام مركزي نجبورين لها والدين تنوحان كبورين لها هو يوينك خير كبدن إن يجونا مركزي أي لا تأكل أيام هالشاسي أو أرضي نمدو بودي بدن صح ما أنت واحد كيسا مادي لو رئيسيني مادي قرت شيء حن معها أو في عيني هاي وقف وين وحبرتها بين وأنا أحسنت لكن كتاب في القرآن كامر كم أنت دول كلا دقي مادي قمر كاو حنا قلنا قنايا شيئا في عيني أرضي هو فكبرتها دين أخلاقها يكبرتها أسلوبها يكبرتها احترامك يكبرتها هذا عمر كلا قصور شيء أو قصة حشرية ألا ورام ربك وانسيار نايم لغارن ما يدري
من ربك waxaad ku jawaabi lahayd my name is ku jawaabta marka waxaad ku jawaabays adaa diyaarsan marka laakiin waxa weey in aad markaasi aad barataan kitaabka quraanka gacanta midig ku qabsada kitaabka quraanka gacanta midig ku qabsada maadigana gacanta bidix ku qabsada sidaas ku wada taas ay iga dardaarana kuna dadaala xijaabkana lagu dadaalo marka hore ilaahay baa mahad iska lees ku keenay madasha wanaagsan ee fiican ee qiimiga badan ay ku dheehan tahay quruxda iyo wanaagga iyo sharafta marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta culimada inooga timiday boorame oo Axmed Nuur hogaaminayo macalinkeena fiican ee sharafta leh Axmed Nuur Ali Ibrahim culimada kale ee daba socota duqaasha odayada dhalinyarta haweenka mar kale waxa ammaan mudan ardayda sharafta leh ee ka qalin jabisay quraanka kariimka barakallahu fiikum waalidiin ducaynayna dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib anu wax badan halkan ka odhanayo laakiin waxaan idiin sheegayaa in waqti badan la idiin soo huray oo idiin soo hureen macallimiintiina ugu horeeya Axmed Nuur waa ardaydii afraad ee ka qalin jabisay halkan quraanka kariimka wallaahi sida runta ardaydii ugu horeysay ee halkan ka qalin jabisay rag bay u badnaayeen kuwii ku xigay rag bay u badnaayeen maanta dawayna masuul inay habluhu badnaadaan yaa laga xumaan habluhu sida inamada ay ku baranayaan bay habluhuna u baranayaan waa nin iyo nasiibkii khasab maaha xoog maaha qasab laguma keeno waxbarashadu waa hibe ilaahay ku siiyey ilaahay si fiican oo wanaagsan haydin ku garab galaan leena waa inii ducaynaynaa waa inaad laakiin qalinjabinta rag iyo dumarba quraanka kariimkeeda halkan ka qalinjabiseen waa inaad qiimigeeda dee laydiin arkaa oo si fiican wallaahi maalintuu sheekh Axmed Nuur khayr allah siiye noo yimiday magaalada Boon macalinkaas macallin noo yimaada macalinka ugu khayr badan ee ugu sharaf badan buu ahaa anagu aad iyo aad ayaan jeclayn nagaba tagamaba jeclayn saaxan anagu inaan dhalaaban moodayn inuu naga taga marnaba ma jeclayn balse muxuu reebay halkan ninka waxa la idiin sheegayaa ardayda boqolka arday 7 arday baa ka dhiman baa lagu inta quraanka ka qalin jabisay inta kale ku daba jirtay iska daayo waxa weeyaan maalinta uu halka yimiday madrasad qura ayuu furay dhowr jeer baan la kala geli jiray madrasadaha balse inka beertii uu beeray mirihii ka baxay afarta koorne ee magaalada afar madrasadood baa ka kala furan iyo in ka sii badan baa ka furan inta habeenkii aqalada lagu dhigtaa ka badan ma jirin markii hore magaalada Boonsadaas quraanku aad iyo aad ugu yaraa culimadu way ku yarayd inta culimada wallahi quraanka garanaysina sheekh masaajidka la tujiyo baan markii jirnay sheekh yaro meel malcaamad ugu dhiga awlaadda kolba inta yararna waan arki jirnay laakiin arday walba ka oo ka qayb gasha quraanka kariimka ma jirin Axmed Nuur horteed aad iyo aad waynu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waynu Axmed Nuur ducaynaa ilaahay maalinta qiyaamaha xasanaadkeeda ha garab galo oo hadhiga nin walba wuxuu geystay isagaana iskale beertuu beero muruhu ka cunaya isaga iskale waxa weeyaan sheekh Axmed Nuur waan ku ducaynaynaa ducaad nagaga tagtay ducaanan isku ognahay xataa ducayna noogu soo noqotaan jecelahay xataa haddii aad maxaan rakayay dee meel dheer nagama tagin meeluma wada joognaaye mar kasta meeshaad joogto waan ku ducaynaynaa ardaydeeda sharafta badan leh ee kaa reebta quraankana waxaan leeyahay waa inaad quraanka aad xifdideen sharaf ku dartaan ammaan ku dartaan qurux ku dartaan aad ku dartaan maxaan rakay akhlaaqad wanaagsan xagga aakhirada iyo xagga adduunyada waa inaad akhlaaq wanaagsan ku dartaan dadkeena u faa'iideysaan madrasadaha quraanka inta laga bixiyo gunaha iyo inta bilaashka ku dhigataa
والله مركي هروح مدردقة يا إمي كبو والله بإسلام waxaan leenahay mid walba wuxuu geystay isaga iskale taasi waa taas waalidiinta awlaadda dhashay ee quraanka sida fiican u bartay mar labaad baan u ducaynayaa jisa Allah khayr ilaahay xasanaadkiina waxaad helaysiin maanta qiyaamo waa ka culimadu si fiican inuu faahfaahinayaan daan waxba kama garanayo waxaan soo idin sheegayaa oo mar kasta idin sheegayo oo mar labaad idin sheegayaa mar kasta oo xaflad qurux badan halkan iskugu nimaadno ka waalid ahaan waxaan idin sheegayaa awlaadeena mar kasta aan u qabano xafladaha ee qalin jabinaysa wixii kaadooyo iyo wanaag loo sido in ilma qof kastiba qofkiisa uu jecel yahay qofku gurigu ka soo baxay oo beydku ka soo baxay waa inuu beydka ugu geeyo oo halkan waxba kartoona ku dheerdheerinin sharaftu waa taa ku dheehan imika wajiyadooda maaha kartoonada iyo kaadooyada sidana maaha wallaahi maaha oo billaahi maaha waxaan idin sheegayaa inaad aqalaha dhexdooda nin walba qofka aad jeceshahay wixii aad u sido dee si fiican ugu guddoonsiiso mar labaad marka ugu dambeyn waxaan kaga baxayaa waxaan idinku salaamayaa mar labaad salaamka islaamka salaatu ugu qiimo salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وإذ قال إبراهيم لأبيه يا سارة تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين هو تائه متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيرانا ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح